dowladda Kenya waxay qaadaysaa tallaabooyin kale oo dheeraad ah oo la xiriira mas'uuliyiinta ka tirsan dowladda waqtigeeda uu dhammaaday ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. Shalay oo keliya waxaa magaalada Nairobi laga soo celiyey garaan garoonka Jomo Kenyatta wasiir dowlaha madaxtooyada Soomaaliya Abshir Buqaari. War ka soo baxay hay'adda socdaalka ee dalkaasi Kenya waxa ay ku eedeysay mas'uulkan in markaasi uu watay baasaboor dalkaasi Kenya laga leeyahay oo uu si sharci darro ah u qaatay. Waxaase dhacdadan ka horeysay ra'iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka Mudane Jibriil oo sidan oo kale lagu soo celiyey gudaha dalkaasi Kenya mar uu halkaa ka degayay. Waxaase jirta in wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya hooy la sheegay inuu ku leeyahay dalkaasi Kenya ciidanka amniga dalkaasi Kenya durbadiiba baaritaana ay ku bilaabeen. Wargeysyada ugu waaweyn ee magaalada Nairobi ka soo baxa bogoga hore waxaa si aad ah u qabsaday tallaabooyinka ay qaaday dowladda Kenya oo olog la ah Soomaaliya. Laakiin dhacdooyinkan oo idil waxay dirayaan waa hal fariin. Haddaba maxay tahay fariinta ay dirayaan in Kenya ay qaado tallaabooyinkan kala fogeyn kara xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo waliba Kenya? Aynu eegno marka. Marka muddo xileedku uu dhammaado, caadiyan dowladuhu waxay aad uga baqaan in dalalkooda la geliyo lacago aad u fara badan oo markaasi la xiriirta waqtiga oo dhammaaday oo mas'uuliyiinta dalkaasi joogta ama Soomaaliya ha ahaato ama meel kale ha ahaato aysan jirin isla xisaabtan ama isla xisaabtan daahfuran, taasoo keenaysa in dalalka qaarkood la geliyo lacago tiro badan maadaama muddo xileedku uu dhammaaday waqtigana uu gebagabo u yahay. saas daraaddeed dowladda Kenya oo ka duuleysa muddo xileedka dowladda oo dhammaaday iyo baarlamaanka oo dhammaaday ayay waxay qaadaysaa tallaabooyin dheeraad ah iyadoo ka hortagaysa in bangiyadeeda ama dalkeeda la geliyo lacago laga qaaday Soomaaliya si loogu maalgeliyo dalkaasi Kenya, taas oo caadiyanba dhacda marka waqtiga dowladda jirta ay dhammaato ama xilliga kala guurka oo isla xisaabtanku aad u yar yahay. Soomaaliya oo kale oo musuqmaasuqu hareeyay uguma sii jirto marka muddo xileedku dhammaado, caadiyan waxaa dhacda in lacago fara badan la lunsado isla xisaabtankana uu aad u yaraado, taasoo keenta in mas'uuliyiinta qaarkood ay la baxaan lacago xad dhaaf ah oo ay ku hayeen gudaha dalka oo ay geeyaan dalalka deriska sida Kenya oo kale. Laakiin dowladda Kenya ma aysan shaacin in tan ay ku lug leedahay ay soo celinayso mas'uuliyiinta dowladda ka tirsan inay ku lug leedahay in dalkaasi la gelinayo lacag. Laakiin dowladda Kenya waxay sheegtay in cabsi xooggan ay ka qabto arrimahaas oo ay ka duuleyso in gudaha dalkeeda la soo geliyo lacago lagu maalgeliyo dalkaasi. Haddaba xogaha la xiriira xaaladda Kenya iyo Soomaaliya u dhaxaysa waxaad kala socon kartaan dagaalada baraha bulshada aan ku leenahay sida X, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok iyo baraha kale ee bulshada.